Hang on to your seats. Everything is about to change. gobolkan waxaa la yiraahdaa Shirang Pat run ahaantii dad aad u fara badan ayaa ku nool boqolaal sano ayay jirtaa marba wuxuu ka talin jiray Sultan Tipu nin la yiraahdo waxaa jiray dhaqan xeer sharci intaba balse markaas kadib Tipu markuu geeriyooday nin waxaa soo baxay Hari la yiraahdo iyo waliba nin Keesho la yiraahdo ayaga ayaa maalin walbo meesha fitna ka abuuri jireen gobolkan wuxuu leeyahay saldhig maxkamad talis intaba balse waxaasoo dhan waxay hoos imaadaan Hari iyo Keesho ayaga ayaa dadka waxay doonaan ka samaystaa Georgia doqon yahow lacagta aan kuu sheegay haddii aad qaadan lahayd maanta horumar ayaad ku fadhin lahayd laakiin adiga hadda doqonkaas ayaad warkiisa qaaday adaa doqon oo damiir lahayn war yacni janaalka waxaan u furtay shacabkeyga inaa ugu daneeyo kanaalkaas aniga waan burburin karaa ma og tahay midaas maxaa burburi karti mala warya doqon aan damiir lahaynaad tahay warya daacadda oo noocaadoo kale ah mar walba waxay ku haminayaan inuu qof imaanayo xaqooda oo u dhicinayo taas waa riyo adiga aad ku riyootay waxaa kaloo kuu sii dheer doqon adiga mar walba waxaa jeceshaa in taariikhda ay ku xustay laakiin taariikhda kuma xusayso doqonnimo ayaad u dhimanaysaa adiga ugu wadaba dadka waxay yidhaahdeen qofka markuu xanuunsado digtoor ayaa la geeyaa qofkii kibirkiisa batana Hari ayaa loo geeyaa kanoo kalena dawadiisa aniga ayaa haayo wiilkayga kanoo kale looma baahna wakhtigaaga inaad ku lumisid ee hooshaada cab ayaan ku leeyahay cab hoosha walaalkay aawe war waa la gacan galay weligeyga waxaan fiirsan jiray filmaanta weliba waxaan ka arki jiray hal qof oo 10 nin ay garaacayaan balse maanta indhahayga ayaan ku arkayaa yarkaaga atooraa iska dhigay adiga kuuma socon meesha ka carar ayaan ku dhihi lahaa ninkan intaad u gudbin aniga ayaa kuu dhammaynaayo
maxaad dhamay kartaa adaaba 3 kiilo ee waryahoy maxaa naga qaadaysa intaan kugu dhamayna hadda xaalkaanaan ku dilana waana arki doontaa ma ogtahay waraabaha kan aamusan iyo kan qaylinaya kan aamusan inuu khatar yahay ninkaad ku tilmaantay inuu 3 keli yahay ayaa wuxuu soo dhamay kartayga buuggiisoo dhan raganimo ma ahan 10 qofood inaad hal qof ku dishaan laakiin raganimada waxay ku jirtaa hal qof markuu 10 qof uu dilo keligiisa weliba fulayga sidiisa buu ulal badan yahay laakiin usha aad qaadanaysa waa inay noqotaa mid waxtar leh oo weliba nin ruuxii kale lala soo gabadheeda aniga meesha mar walba waa jeclaa inaan ku duceysto laakiin nasiib waan ogaa markii aabbaha la bedel ayaa nasiib u hela ka waran hee waxaa la dhahaa meeshaan qofka ku duceysto ducada waa laga aqbalaa ma run baana ii sheeg biyo وكتوغا كان بيان ورنقا تكبر كلها حتى حدينتا دورب أرمونيو شيطان كان أساقا ما بدي منعي مياه مرحبا أنك وحان برنا إن أردت شيطان كان ما حكو برا قبل بيو بيسي ترتيب وعطا هلو كيشو يا قي qofkan waa dhaawac wuxuu yaalaa bartamaha magaalada meesha laga dugaamaysto aan ku baryaa inta u imaataan isbitaal gee aad ayuu u dhaawacan yahay marka dhaqso ugu imaada idinka maxaa kugu dhacay wiilkayga walaalkaa wuu fiican yahay maxaa dhiig kolkaa ka muuqdo dadkii walaalkay soo garaacay ayaan anigana gacmaha ka soo gooyey walaal horta aniga nafsadeeda wiil ayaa badbaadiyey wiilka makoo i badbaadiyeyne gabar ayaa biyaha afka igu qabtay gabadhaasaan doonayaa baaritaanka markuu dhammaado kadib 2 maalmood hoostaada ayaan keenaya gabadhaas waxaan rabaa inaan guursado aniga wadna xanuun daawo waa loo heli karaa wiilkayga jiro kale haddii ay tahay xitaa daawo waa loo heli karaa macno ma lahan laakiin adiga waxaas leh inaad naag kala guursadin naagtaada maxaad ugu jawaabaysaa ii sheeg hadhow adiga ayay su'aal ku weydiinaysaa waatanaa maxaad leedahay markaas hadeer naag inaan guursado aniga yaa dacwo ii dood ka qabo gabadha walaalkay uu ku waashtay sida ugu dhaqsiya badan waa inaad ku keentaan aniga gabadha xaggeen ka raadinaa ciwaankeeda maba naqaanay war gabadha gaashaallaha baadale baa la orinaya madane muxuu yahay hadduu dhalayna walaalkay ayaa jeclaaday runtii gabar waxaa la guursadaa marka adiga dhibaato ay ku haysto gabadha kuu naxariisato gabadhaana waa ay kuu naxariistay adiga istaag guduudkaasina soo ma jeedid soo ma jeedid dadkoo dhan meesha way ka carareen ninkan weli wuu taagan yahay waa nin sharci yaqaan oo inaad sawirtaa facebooka rabaa inaad dhigtano mudane runtii markii ku soo laabato shaqada aniga aad iyo aadaan uga farxi waana mahadsan tahay yaqay adiga mudan mudane halkoo arrin kalaa jirtay ii sheeg
runtii mudan aan howlgab markay noqdo dadaa garab iigu sii shaqada inaan kusoo laabto bakaas inaa ii ogaatidaan u baahanahay intaas taliye walaal harii kunkooy ku doonos walaal harii ah meeshan ma aha ee xafiiska igu sugo soo sheekaya wahaye madan harii ninka magaaladan ugu khatarsan waaye haddis inta imaadan weynas oo imaadee waxaan ku dhiraa iska qaabil waan ku salaamay mudane harii ninka la dhahaayo si wanaagsan ayuu ii ammaanay midaasna waa midaan aniga muteystay fadhiiso wiilkayga fadhiiso waxay ila tahay meel qaldan inaad imaadeen waa maxay waxaad la imaadeen ninkaan aad u jeedid adeerkiis ayaan ahay harii ayaa la dhahaa walaalkiis ka yar ayaa jira keeshu ayaa la dhahaa aad ayuu u qurux badan yahay yaraantiisa wuxuu jeclaa bisooladda inuu ku cayaar hadda markii uu weynaaday bisooladii ayuuba ku tegayba gabadhaada ayuu jeclaaday waa inaan ku darnaa marka burcadnimadiisa ku faanaya lagama yaabo gabadheedii inaan ku daro waxaan ahay boolis ahaw ama wasiir ahaw waxaad ogaataa mar haddii gacanteena ay qoortaada gaarto sirwaalka aad ku kaadinaysaa taariikhda ayaana qoraysa midaas walaalkay gabadhaada mar la kulansii haddii uu dhididka keeni waaye isagaaba nin rag ahayn mar dambe kelmadaas afkaaga dee ka soo baxda uu xabad ayaan afkaga gelinaya wariya bistooladda adiga aad sheegaysid annagaba waan wadanaa ogow haddii ay taada kugu yaraatana annaga naga soo doono tanna adiga iska xaraysa ayaan ku leenahay markood qofka aniga wanaaga ugu imaana haddii uu diidana burcadnimadeen ayaan tusnaa taasna aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso gaashaalla adiga si fiican ayaad kaartada u jeli taqaanaa gabadhaada waad diidi kartaa micno ma lahan laakiin hadda hurdadiinna way wanaagsan tahay cuntadana si wanaagsan ayaad u cuntiin hadda waxba idinkama hadlaysna laakiin mid ogow gabadhaada haddii aad isku dayday in aad diido waxaa hubanti ah taariikhdaadoo dhan inaad u baasbaxayso dhegaysta dan walbood iga leedihiin xafiiska ayaad igugu imaanaysaan gurigayga dadku ma qaabilo waa markii ugu horraysood qalad gashaan waad yaa cafiyey ee ka taga guriga si fudud ayaa waxaa ku tidhi halkan ka taga anaga ma baxeeno ilaa aan danteenna ka gaarno hadda wiilkeenna wuxuu rabaa adiga gabadhaasi sharafleed inuu ku guursado haddii aad diidid waxaad ogaataa gabadhaada 7 ayuu la gelayaa kadib ayaa la guursanayaa taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso arrintaa waxaa naga xigtay inta walaalkay isbitaalka uu ka soo baxaayo mar hadduu walaalkay isbitaal ka soo baxo naag la'aan guriga ma tegaayo middaasna waa inaad maanka ku haysaa walaal harii dumaashidaa waa taasaa haye dumaashida mustaqbalka shoobinka waa inaad si fiican u soo adeegataa arooska ma rabna annaga inaan daahino waan dadejinaynaa nabad wiilkayga nabad haa walaalkayga gabar qurux badan ayaa dooratay adiga midii horena inaad disho waadba ku saxneedba nasiibkaaga waad ku guulaysata ayaan ku dhahay kuu gashay yaaway ninka aniga ninka markuu dhimir adiga biyaasiinas kaa saara inuu ku guursado kabarada ka sheekay hoy waa maxay waxaan dhacayana waa 3 awood boolis biskoolad iyo tuugo dadkaana waxay rabaan inay ku guursadaan aabbahan midaas ayuu diidan yahay oo dantiisa ma yaqaana asaga dadkaana afka inuu la galo ma ahayn muxuu la galayaana marwo dadkan awjeed naxariis baa ninkan hadalkiisa waa ku saxan yahay maxaa yeelay gabarteeda inay wateen seerawan ka inteen bacdeena waa dilayna ku dhahay naxariis ma u sameeyeen qoortay ka jarayna dadkan awjeed waliba nuka boolis waa iska nahay iyan boolis una ayaan ku dhahay khalada ay galayaan bacdeen unuka meesha loo inaan raali geliyo oo tagayna iyan raali geliyeena tasbid hada nimya maanta inay suul rabto wax lagu ogaadaa markay badato xumaan cid wax noogu qaadi karta ma laha sababtaas saman ayaan wadanaa annaga mideeda kaleeta ayaga wax walba ha sameeyaano laakiin guusha annaga ayay noo dambaynaysaa in iiddaada khayr u sheeg gabadhaydii gabdhaha run ahaantii hindii ku nool caadi ma ahanaan ku dhahay weliba waxay u dhaqmayaan gabdhaha yurubka imaada camal ma waxay kula tahay hindii inay dambayso hindii way horumarsan tahay way imaadaan u malaynaa aniga nasiib badnayaa saakiyaa iga soo horbaxa nasiibkayga aad ayuu wanaagsan yahay gabadhan aad u qurxan ayaan arkay waa inaan ku dhegsadaa marka waa maasan tahay aan ku dhahay kale walaalkay shiya qofta aruusaya warkaal haddii la maqlin waa lagu ka jiya hata baa kuu sheegay dignina kuu sheegay qofkan qofka wanaagsan waa inaad rasataan qoftan waxaa gursino keeshuu baay ee keeshuu baay isku halay keeshuu muxuu yahay hal mar waa la kulma ayay ku ilaabaysaa fishaali cabduulka jeclaad soo midkaas mahana aha
tartiib u jeceshaa mugda haddii xamdi tartiib maasantay gabartay arya adiga u laclacay yaa awood ku sii meeshaaniqo kaliya taagay haddaanan dharka kala bixin ku dhaaday adayow waa yeelka adilan waa idin duceen naga tagamaliya cajuusada arya ugdanba haddaad taabatid ogaada qofkii korkeeda isku taabta waa la kasbayha kaalay maxaa kaa qaldanna qofka waa ay kuu dilaysaa naamu waa la tanakeen qoftaan waanta aad bay qurux badan tahay waryahoy ninkaas ma arkin og qoftaan usaa jecel aligu kabina afaareeda ka bax adig kii sugaa sheegaysa xaggayga wuxuu ka yahay canug 3 jira canug 3 jira gabar weyn oo 20 jira ma ka faal qaadi karo balse aniga waxaan ahay 20 jira gabadhan oo kalena waa dadka loogu talagal inay la wadaagaan nolosha aniga waxaan bala qaadi karaa gabadhan nolosheeda iyo mustaqbalka in aan dhisi karo aniga noloshan waxay macaan leedahay mataqaanaa markaad jecelkaaga naftaada halis aad u geliso anigana waxaan diyaar waa nafteyda inaan halis u geliyo dhib walbo khatar walbo gabadhan darteeda diyaar waxaan inaan u galo noloshan waxay macaan leedahay mataqaanaa markaad naftaada jecelkaad halis u geliso jecelkii ku qaadan maaha weligeed mid ay ilaabayso meel walba guurka ayaa laga sheegoyaa adiga nintaygu maxaad u guursanaysaana aniga amarkayga wuu ku dhacoyaa marka maxaa iskaga diidi waysane aniga maa diidi karahe qof walba mustaqbalkiisa asaga ayaa go'aan ka gaari kara adiga markana iska diiday ahayd aabbahaaba gaashaaree tuugada maxaa qorta kuu geliyey taas waxay u egta adigoo dil toogasha lagugu xukuma adigaaba ogol iska dhima saaxiib mararka qaar waxaa la fiiriyaa duruufta meesha taalo duruufta meesha taalana waxay tahay dadkaas waa dad tuuga awoodna way sheeganaya sharciga gacantooda ayuu ku jira aabbihi waa daacad waan ogahay laakiin waxaan u diidanahay inay dhibaato soo gaarto anigana aqli ayaan isticmaalay sidaas ayaan oo aamusay marka ma fahantay aniga aabbihi aad ayaan uga naxaya yaaqib mid kale iska jeclaa oo la baxsano waaba ii fiicnaan leed haddii aan helayo nin aan ogoleen korkayga in la taabto oo geesi ah laakiin waxaan aaminsanahay maalin maalmaa ka mid a inaan helayo nin sidaas u fiican oo i jecel aniga aana ogoleen aniga in xaggayga loo soo dhaqaaqo gabdho akhbaar fiican ay dhihaya xalfad waa iskoolka jirto maya wiil cusub aa iskool kusoo biiray wiil cusub ah wiil cusub wiil cusub wiil cusub aryaa wiil cusub aa kusoo biiray iskuulka wiil cusub waryaa gabdha waxay ii sheegaan see loogu ogolaan karaa gabdha iskool dhigtaan nin isku soo biiro nin meeshaan intigaan joogo mamnuucay ka tahay adiga nin ma tiid miyaa macalin aniga nin waan ahay laakiin nimanka waxaan dheerahay nimanka nimankoodan ahay nin kale nas meeshaan imaadan aniga raali ma kana qaahay marba ininka anaa idin leh ininkana anaa ileedihiin oo kaale hadda waaba diidantiiniya naag walbaan gabad inaan ka qabo waryaa hoy doora diikheed ma moogo doorahi diikheed ma moogo damac la qaadaa dalkana ka tegaysa dama eegi ma dawooshen waryaa hoy idinkaad ahaleed maxaa dhihi leedahay ninkaas iisheeg baadaan ku weydiiyoyahay iisheeg adaan ku weydiisay yelle aniga haddii aan ahaan lahaa si fiican ayaan hab u siin lahaa oo macalin waa ku baryaynaa naag nin la'aan ma noolaa karta naga daano adiga iimaanka allaan iiga siiyo naag nin la'aan ma noolaa karta yaa ku yidhi anii tan waaba ka sibe meeshaa markay ka baxdo shaxaaday magaalada u tagtaa laakiin anii shaxaadkaasaan ka hor joogsaa nin ma arkayso waryaana calaqabtooshin yaaliyow waalidiintiina meeshaan waxbarashaan igu soo dira nin ina soo dhaweysay maa nin haddii la soo dhaweeyayo aan la li soo dhaweeya nin kale maba soo gelaayo meeshaan soo baxa lamaantiina macalin maxaa dhigaa gashanaysaana adiga qayladiisaan diidooya waad ku qurux badan tahay macalin waa liigu dhaliyaan ku dhahay soo baxa kan nin ma ogol iimaanka alla ka qaaday gudoomiye kusey 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 dooni mayno maxaa la qaylinaysaana maxaa la qaylinaysaa maxaa la yidhahdaa koolajkaan anile ninkee war sharciga hore waa la bedelay sharci cusub ayaa koolajka loo sameeyey miska qaylinaysaa adiga mawaalantahay mawaalni waxaa ii waxaysa maamulaha 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 naftirkeed maamulaha naftirkeed maamulaha naftirkeed maxaa ku daarin ood la qaylinaysaa maxaa ku daarin ood la qaylinaysaa ay leedahay meeshaan ninaa imaaday nin sas ku soo geli karaa nin aan ani ahayn xasan jilico muu ogola idinkana waa imaayaysin dadkaan aan soo wati muujada anigay taageeri yihiin ballan waayaan ku dhahay waayahay adiga dadkan kugu raacsan dadka waa igu raacsan yihiin exusdana ay igu raacsan shaqaalaha iyo madaxda dhan ay raacsan yihiin aniga gadaasheeda fiiriha loo joogaa muujadid miya aawa hadda waxaad adiga gadaashay mala jooga miya ya malisiibta keligiya
maamula raalla ahaw gabdhahan waxay dheheen waa kula jirnaa nin ma rabno adle nin noo hadda markii meeshaan imaadina waa ii kala baxeen waa ujeeda dhib ma lahan adiga waxa wanaagsan amarka maamulka uu soo bixiyey inaad diyaar u ahaato kursi walba oo kollejka ku yaala wiilasha in konta kuraas looga gooyo ayaa lagu talagalay marka sidaa daraaddeed haddii aad dood ka qabto adigoon banaabax sameynno carruurta soo shirin waxaa rabaa maamulka inaad u tagto laakiin waxaa kasii wanaagsan inaad iska dhaafto maamulka hadalkiisa runtaa waay bes iga raalli noqon ku dheh anaa gefi ma oho khudbadayda leen ku ekaha naagahana niman haddii u baahan yihin anaanba ku daraa raalli ahaaw gabdho adinka ma waxaad rabtiin wiilasha cusub inaad la kulantiin soo sax maahana laakiin aniga ayaa ninkaga hormarayo midaaba teleefonkiisa gacanta iga saaray okay tartiib yaa qays aniga ayaa nin xalinaayo sawiradoodoo dhanna halkan ayay ku jiraan emailka 300 waaye website-kana 600 waaye yaa haddaba ogaada iska soo tuura lacagta maxaa meesha ka dhacayana horta ninkan araggiisa ma xuma sida shukulaatadii kale aad ayuu u macaan yahay qorshaha uu kuleejka u yimid waa laba nooc inaan annaga ku dheelno ama inuu asaga nagu dheelo aniga gabdhaha yara istrukeeyan waxba muxuma laakiin naagtan ay fareeja la dhahayo damuu dhigta dugo u dhiman bis igaarkeed camal waay waa istrukeeyoosa iimaanka ilaahay ka siiyey subax wanaagsan macallin subax wanaagsan macallin war adduunya gadoon inas yahay 7 jir waaye wiila imaadaya ima khashin rosetay afka marsohoysaa bilcaanta birkood mashiixaayaan mudana waa ku salaamay adduunya gadoonkan arka minaa imaadile la maqli cajariidhana la soo qaaqaabi iimaanka allah ka siiyo kuwaana mudanaha maxaa daaray waaw wiil farta ka xiran ayaa yimid kolleejka akshinkiisa xataa waa khatar gabar kuleejka dhigata ayuu rabaa ayaan u malaynaya soo bax sawirkana la tusay iyo qaab ahaantiisa hadda ayuuba qurux badan yahay caadi maaha ninkan maxaad i tirinaysaa maya waxba maahan ee na bixiin ninkan macallin jeki gabdhahan oo dhan maaliyu keliya isha socdaan mar macallin jeki haddii itiri macalinkaagan gabdhaha waa kaabiley ani laakiin keligay ahay gabdhaha ma la hadli aqaano waan ka baqayaa markaan hore istaago waxaa la rabaa kalsooni isgili macallin jeki yaa kuu duceey waay maxaa sameeya macallin sheeg waa qaabiley haan ku dhahay kalsooni buuxdan ku sii waa duceysa waa mahadsantahay macallin aad baad mahadsan mahadsanidin gabdho magacayga waa kaarti krishna kaarti krishna kusoo dhawo kuleejkeena mahadsanidin maanta maalinta jacaylka miyaa ubax ayaad gacanta ku wadaaye aragtida koowaad maxabo ayaad nagu reday maxabada waxaa loogu talagalay dumarka haddii soo dhaweyn laga helayo waa wax wanaagsan anigana waan ku faraxsanahay iga guddoon mahadsanid dherarkaagana xafiid miisaankaaga 75 kiilo kalarka jecesha balaaga gabdhaha qurxoon ubax waan u badiyaa gabdhaha noocee jeceshaan kuwa faashiyonka gabdhaha faashiyonka nooceed ka heshaan adiga manoo sheegi kartaa kuwa da'deeda ah gabar saaxiib ma leedahay maya asxaab ayaan leeyahay jacaylna maya gabar aad ka hesho ma jirtaan maya haddaad heli weysan haddii aan heli waayo nolosha ayaan isdhaafinaa waa balan noloshaa nooga sheekaysay kulankaaga aad ayaa ugu faraxsanahay waan ku salaamay waan kaa qaaday anigu waan ku aqaanaa ma og tahay anigu sidoo kale waan ku aqaanaa laakiin sidee gabar magaaladan degan aniga aan aqoon u lahayn wayba yar tahay aniga markii uu samaa faraa xirnaa ayaan laamiga kuga arkay sharciga waad dhowrtaa adiga aniga sawir ayaan kaa qaaday kadibna facebooka ayaan dhigay waad mahadsan tahay laakiin hal midaan raba inaan kuu sheego wiilka adigu guursanaba ma aha mid kuu qalma dadkoo dhan sidaas ayay dhahaan maxaa dhacay ma iska dhaaftid maxaa sameeyahay duruuf ayaa jirto inaan ogolaado waan ku qasbanaa mana diidi kari haddii ogolaado waa dhib haddaan diidana wayba ka sii daran tahay dhib malaha magacii waa kaarti krishna waxa kale kugu taga fiirahan mahadsanid adigaa mudan kulanka koowaad ayaabad hadalkaada igu qancisay aadaad u mahadsan tahay sidoo kale
mudane shil labaad ayaa magaalada ka dhacay maalin cad ayaa dadka la dilaya xayawaanimada way ballaaratay maxaa kale keeshu iyo walaalkiisa ayaa ka dambeeya adi ma caddayn kartaa gaashaan laatay had maxaa wax ugu qaweysi ii sheeg be wara dhegeysta hadal meeshaan looma baahna warbixintan dadka idin soo siiyey hal qof markhaati ha ii keenaano waxaa idin tusaa wiil iyo walaalkiisa inaan xabsiga gudaha u dhigo haye yaa maanta xiisa ma jirta maa tiri seerabtiin idinka waa igu joogjoogsoosiin madaxayga istaagosiin be macarabtiin kaartig kabadhi ayuu dheelaya yaa asxaabay aqayna keena soo baxa kar kaartig maa kabadhi ii dheeloya gane maanta jag iga dhaha oo kaali kharajo muhiima eed saan in loo dhedheelo haa laakiinse anigii adiga kuma jirna dheeshaan ogoya yaa maalin jeki ciyaartaan ciyaar rabo dhibaata ma iga imaataan ila keligii ayaa rag ka ah halkan dhib male aboo miixa waad mahadsantahay diiq kaligiisa doora dhex ordaayo deb waa ku dhacaa nasiibkiisa isqabaa yaqa isbitaalka u qaada dhaqsada isbitaalka gaarsiiya beella waaye be haddiiba gabdhihii nimanka ay wareeriyooyin dhulkane wab ay ku joojoogsooyin aniga waa ufofooriya aan ku yidhi waa ufofooriya waan ku salaamay waan kaa qaaday kaliya maxaa halkan ku fariisiiyey aniga hal dhib ayaa haysto dhibkaas ayaan inta la fadhiya sidaas darteed waan fakirayaa hadda marka ii sheeg waayahay walaalkaartiga iyo asxaabtiisa aniga markaan gurigeyga aadayo iyo markaan ka soo baxayaba iyaga ayaa i daba socdo teeda kale haddii aniga qof jidka socdo ila hadla xataa qofkaaseeti si xun ayay u garaacayaan dhibaatadaas ayaa aniga i haysta dadkaaseeti dad ay dhaafayaan ma lahan inaan meel aada xataa way ii uriyaan aniga cidna lamaba hadli karaba sida darteed iyaga ayaan uga cabsanayaa hay macalin jeki welwelka dhaafgalaan ku dhahay dadka okay adina fasixino haddeeraan galaa gartaan dhegeyso hal maalin keliya dulqaad ayuu kuri macalin jeki hawshaan waxay ka dambayso way ku dhammaanaysaa qura free ayay noqonaysaa waan ku baryaa kaarti kaftanka naga dhaafno waryaa waddada noo baneey wardaqoyo walgad socda adiga istaag ayaan ku dhahay
walaal waa ku salaamay. walaalkayga yaraa waan kaa qaaday. noloshayda laba qof ayaan jeclaaday, waa adiga iyo adeerkay. adinka dartiinna si aad farxad u heshaan wax walba waan u samayn karaa, laakiin adiga waxaan rabaa magaalada ka baashaal, aqligaadana waa inaad isticmaashaa. war adiga intaad nooshaha walaalkaad magaaladan waa ku raaxaysanaa. uma jeed siduu faraxsan jecel ayaa galay. runta waa dhib ma lahan asigale hal mar ha guursado. jecelka inta cad ku hayn waxa laga yaabaa in uu burburo. taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso. maxaa idinku dhacay? aniga gabarta gaashaalaha ayaa idin dir wejigiina muxuu sidaa u yahay dhaawacni ayaa idin soo gaarsiiyey. wardee haddii nal ogaado unukoo dhan waa noloda la abaan ku leenahay. war maxay tahay dhaawac wejigiina ku yaala ii sheega bal yaa idin geystay. kan dartiisana u dhacday. kan dartiisa ah jidka markaas soconin nin islaameesna u daadaansada beerkaana laga soo tuma galey camalan oo laxan jiriyey. dooli haddii aad gambareel qoorta u gelisaan oo mukulaal aad u dirtaan mukulaasha ii deedo waay aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso. hay gabdho maxaad ugu dha halkaan u fadhiisiin? waxaad u egtihiin dad baashaalaya oo kale oo buug jecel akhrisanayo. walaalkeeshu ayaa walaal fishuu soo wacay. waa ku salaam maanta aniga dib ayaan kugu soo laabtay. runtii nafsadeeda adiga ayaa badbaadiyey. maanta haddaan nool lahayne adiga dartaada ayaa u noolahay. marka waxaan kuu sheegaya maanta inaan kuu soo socdo waana kuu imaanaya. aad iyo aadaana kuu waxaysay mar dhow isug. ma intaasoo keliya dhibaatada? ma ninkii adig ku guursan lahay miyaad ka baqaysaa kale? yaqa aniga nin tuuga miyaan guursadaa? nafsadeedaba kuma aaminayo ninkaas. ninkaas maanta hadduu tuug yahay waxaa laga yaabaa marka uu ku guursado inuu iska daayo oo nin fiican u noqdo. bal ka war markaas. marka kaale aniga maad rabtaa inaan ninkaas nin fiican ka dhigane nafsadeeda qofkay rabto ma dooran karo. qof walba dooq ayuu leeyahay balse dooqiisa maahan miduu helaayo. waxaa laga yaabaa qofka qofusan rabin inuu helo. aniga cabsi darteeda haddii aan u ogolaan waxay kula tahay nafteyda inay ku faraxsan tahay ninkaas aniga ma rabo. maxaad u diidaysaa nolol heer sare ay ku noolaan lahayd? war nolol heer sare ma rabo aniga nolol farxad le ayaan rabaa aan ku noolaado. rii habeen iyo runtaba midna lama qariyo. dadkan hortooda ka cadday aniga inaan ku jeclahay adigana aad i jeceshaa middaas inaad ku nabadgeshay ayaa laga yaabaa. ogow fashali xaggeed ii waddaa adiga ii sheeg. fashali xaggeed ii waddaa? fashali isdajeed xaggeed ii waddaa ii sheeg. ila hadal loo adag. halow idhageys dadyow dhammaantiin isku imaad waxaan rabaa dhegihina inaad i amaahaysaan. aniga waad i taqaanaa magacaygu waa fishaali waxaanay dhalay gaashaanlaha gobolkaneeti. waad ogtiin aniga waxaa laysiiyey keeshow. adigana waad wada ogtiin aniga keeshow ma jecli. waxaan u ogolaaday daruuf jirta awgeed laakiin aniga waxaan jeclahay kaartig. aniga awal awood aan uga hortago ma haysan laakiin hadda waan haystaa. kaartig aniga waan ku jeclahay waxaan rabaa inaan kula noolaado. adiga ama ogolow ama ha ogolaan nafsadeeda adiga ayay ku rabtaa. aad ayaan kuu jeclahay kaartig. aniga waan ku jeclahay mana kaa dabaaraa nafsadeeda adigoo keliya ayay kuu baahan tahay kaartig. go'aankana gacantaada ayuu ku jiraa kaartig. inakeen walaalkaa ku wacay. war ma jecli mana u tagayo u sheeg asaga. jeclaa ma jeclaa ninkaas waxaas ma qoreen. haye arrintan maxaan ka dhahaa ii sheeg. maxaan ka dhahaa maxaa la dhahaa waa gelaysaa bek iyo xawadaa ka dhawey. gabar diidan in la kaxeeyo haddii aad idinka xog ku kaxistaan waa calaamada ay durcada leeyihiin amaba lagu yaqaano. war adiga yaa tahay? magacaygu waa kaarti krishna. labalabada aawadiin maahan midaan qaadanaya aniga. hey annaga aqoon ma noo leedahay? aqoon iska daaya aniga si fiican ayaa idin qaanaa. balse ka waran gabar haddii wiil ay tiraahdo waan ku jeclahay wiilkaas hortiisa haddii aad ku kaxistaan wiilkaas maxay ka aaminaysaa inuu doqon yahay? aniga waan ku khasbanahay marka kartideeda inaan idin tusay gabadhan inaan jeclahay. waxay okaadaya fishaali dhegeyso. jecelkaaga yuusan noqon mid aad ninkaas aniga igu reebaysid. jecelkaaga ha noqdo midaad ku guulaystee. run ahaantii markaad jecelkaaga ii sheegato anigana aad ayaan kaaga helay waana ku jeclaa fishaali. fishaali jecelkaaga intuu ila jiro lagama yaabo aniga inaan guuldaraysto. hey kan waa kii ina garaacay. qof weyn wadkiisa ugu yaqaana haddii aan wejigiisa soo xirta xitaa aqoon ayaad ii leedaa sooma imaba ilaabin. uryaha kollejkan gabdha masaakiin ayaa dhigto balse xaqli lacaga dhigo.
nakeena walaal ninka waa kaasaa nafsadeeda badbaadino haa waaye ani adiga saaxiib baan nahay halkaa maxaa ka qabanaysaa ninka raggaa looma baahno naagaan rabin inuu gursado ee waxaa loo baahan yahay qof asiga jecel inuu gursado haddii uu gursado qof aana jeclayn nolosheeda way baaba'day asigana sabab ah nolol fiican kama helaya gabadhaas noloshiisana way baaba'aysaa maalintaas marka aan ku badbaadinayn waxaan u baahnaa dadka adiga ku dili lahaa cabsida aad ka qabto in aan kaa baaba'iyo waaba ku raadinaya inaan adiga ku arko waana ku arkay ogow gabadha aad u socoto inaan aniga jeclahay biyo ay ku siiso nafsadaada ay ku badbaadinaysa miyuu jecel kugu gala adiga kaale fiishaalin waa xaggayga maxaad ka leedahay waryaa ciyaal yar maadaama aad sheegto waad iga badbaadaysaa adiga orodoo iska tag walaal bas waa ku barya aniga khaladka aan galay waa ka soo naqday mar kale ma u dhaqanayo gabadhaasna maba raboba walaalkaaga ma wuxuu ismoodin magaalkan inuu asiga keliya u taliyo mise wuxuu ismoodin limaxa magaalkan dadka qalad yar markay kaa galaan waad baabi'isaa idinkana qalad markaad gashaan waxaad u baahantay in la cafiiso maa mala socotaa adiga walaalkaaga masaakiinta dhibaatada aad u geysteen weliba waxay isugu jiraan carruur iyo ciroole dhibaatada u geysteen neef ma ugu bedeli kartaa adigii sheeg markaas waad iga badbaadaysaa inta ka sugaysa lagama yaabo adiga inaad iga badbaado masaakiinta dhibaatada u geysteen neef waa inaad siisaan markaas kadib ayaad iga badbaadaysaa awaar degdegayna soo gaaray ayaa waxa ay sheegayaan ninka kashubaay la yidhaahdo la la'yahay ilaa iyo hadartana ma lagu sheegin war waxaa ugu dambaysay markii ay dagaalayeen dhalinyaro badan asagoo ku dhex jira ayaa la yidhi in meeshaas lagu waayey wixii warbixin kalena anaga soo gudbi doonaa rowtiliye ninka kashubaay shal dagaalka u geliya lagu la'yahay waa la'yahay halo
walaalkay gareesaa loo xiri walaalkay orda ii soo dejiye maxaa u taagantii walaalkay ii soo dejiye socdo tartiib soo deji saarigaas ka furmin saariley kac ii sheeg yaa saarigan ku xiro saan ku galay ninka aniga markii hore nolosheeda badbaadiya ah maanta waa kanaa sidii dumarkoo kale igu lebisa saariyo iyo xade hala hoogaye waa ii dhamaatay sharafteeda waa u dhamaatay aga dhigo ninkan adinka dartiina leh wax muu samaynin anaka naftirkayna mustaqbalkayna evereska dhiga waryaa hoy anaka naftirkayna gareeskaas noo xiri inaan u xirna ballan ee waryaa kama dhaafeen caabi nimanka yaa bisaaleen nolosheeda ku ciyaare reer anaa kaaga aaray ninkaas maya yaa la dhaafin ma kuu xiri karo ninkaas saaridu ku xiri walaalkay aniga ma dhaafaayo qofka sidaan u galay waa ballan inaan asagana garees u xiro siduu walaalkay ugu xiray oo kale ma daynayo kaas mana iga badbaadayo waxaan isdhahay isaga ayaa ku doogaya maantana waa kanaa horteeda ayuu ku dhintay aniga mar walba waxaan jeclaa meedkeyga asiga inuu laakiin hadda waa kanaa meedkiisa ayaan guwaya aniga way dhamaatay karabla-aan ayaa igu dhacday maxaan sameeya aniga wiilkeyga waa kanaa meeshaan ayuu maasa uga watay reer bisaale inaa soo dillo hawdoodaa soo kiciyeyna ma dhaafeyno dhowr mar ayaan kuu sheegay haddii adadis war wanaagsan ku hadal aniga hadalkan hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso inta meedkan oo noo yaalo looma baahno wax dhaqdhaqaaqa inaan samayno dhib walbo anaga noola geystayna waa u dulqaadanaynaa aniga hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso kadib ayaan tallaabo sharci ah ka qaadaynaa inta laga gaarayena maan anaga wax dhaqdhaqaaqa in aan samayno ninka wiilkeena sidaan u galayna lagama yaabo in uu naga badbaado kow ayaan ka siinaynaa waan dilaynaa halo walaal kumaa tahay adiga anigu waa neeb ah in lay weydiin meeshaan ka imaaday iyo qofkaan ahay waxaad weydiin kartaa oo keliya sababtaan walaalkaaga sidaan u yeelay iyo asbaabta keentay midaasoo keliya ayaa loo baahanya inaad iga waraysato aniga saqajaannimada walaalkaaga sameynaya ee gabdhaha magaalada ka joogi waayeen asaga waa dulli adiga waad ka sii daran tahay hadda ka hor waxaa jiri jireen 200 walaalo midna mid kale qaladka makuu gal mid kale wuxuu dhihi jir wuu saxan yahay ilaa uu meedka walaalkiis ka arko markaas ayuu aqoonsaday walaalkiis inuu qaldanaa marka adigin noocaas ayaa tahay warkaadu wuu wen yahay wejigaad mi hor keeni kartaa adiga midaas aabbahay ayaa i baray aniga adiga waxaad iga badbaadaysaa mataqaanaa sida walaalkaa oo kale gabdhaha laamiyada kuma qasqashaadid haddii aad gabdhaha laamiyada ku qashaado waxaad ogaataa sida walaalkaa oo kale laamiga in aan ku dhigaayo mana iga badbaadaysid midaasna hore ayaan u ballan qaaday aniga halkaan waxaanu imaaday libaaxyada ismahadiyana inaan u dhammeeyo waxaad qalad gashay walaalkay korkiisa markii aad taabatay midaan haddeer waa boorsamiindo filinka waa uu kuu dhiman yahay walaalkaa kaa yaraa ani waan u digay balse asiga wuu ifahmi waayay saas darteed qadka ayuu ka baxay adiga haddaad ifahmi weysan waxaad ogaataa inaad qadka ka baxaysid adiga hadal walbo afkaaga ku soo dhacay waad ku hadashay laakiin aniga hadalkayga si fiican waa inaad u dhegaysataa aniga ballanta aan qaaday sidaydaba waan oofiyaa waxaad ii sugtaa oo keliya walaalkay meedkiisa intaan ka soo asturaayo kadib dunida meel walbo adiga aad kaga dhuumato waxaan ahay qofkii kaa soo saari lahaa mana laga yaabo in aad sinna iiga badbaaddo adiga baasriyo okay haddii sidaas tahay waxaan raadinaa meelaan kaaga dhunto ugu horrayn googlaha weydiinaaba googlaha haddaan ka helo meelaan kaaga dhunto way ii fiicanta waa kaa dhuumanaya waan ka xunaa googlahani wuu isoo qaban laahe dhib ma laha ajensigaan tagaaya waxaan leeyahay tikid ii jara oo ninkaas aan kaga dhunto meel ii geeyaan leeyahay inta kusagaysana xafladiinna waad sii wadan kartaan qofka barnaamijyada noocan oo kale ku dhaqaaqa waa qof jeceel ahaayo mideeda kaleeta adiga arday ayaa tahay maxay tahay sababta kugu kalaftikiisho inaad dishid aniga waxaan ku dhihi lahay barnaamijyadan faraha kala baxa mudana bilaash aad igu eedeynaysaa
kiishubaaya asaga ayaa gacantiis ku dilay dilalka noocaasoo kale maxkamadda waxay ku eedaysaa inuu ka dambeeyey qofka ku kallifay qofkaas gaashaal ma haddaad hurdada ka soo toostay markii asiga iyo walaalkiisa magaalada ay qasaayeen gabdhahan ay kursanayeen waayelada ay dilayeen adi xaggeed ku nooled ma hurdaysa xilligaas ii sheeg waxaan malaynaya haddaad soo nabdaaday marka hadda adiga amar diidda miyaad samaynaysaa madaxda dalka iyo mas-uuliyiinta haddii ay wax ka qaban waayeen dhibaatada lagu hayo shacabka marka ma diidan tahay anigoo kale inaan dhalanayo oo waxna u qabanaya masaakiinta iyo shacabka weliba dad ayaan abaabulayaa oo weliba sideedoo kale ah masaakiinta iyo shacabka iyo waddankooda wax u qabanayo فيديو كبرية استاك فيديو هيدي له كبرية أنا كده أنا كله لما كفتر ما استاك فيديو كن أما كيناي فيديو سي أما كسينا فيديو يا أخي فيديو أنا إدامية كم كيجا يا أمريكا كيلو أم بنا يشيء جيسا والله بنا يا تادي أي نو فيديو فيديو ما يا فيديو وكبرية جودة وجور سفلة وكبرية إيه أقولونه أوكي هذا يا نجادي لا جبرة جعشان مريكن كأي كناشان ورناجا هندي بدي جرو مو واحد أم لا سرقة إني قيميان بين أي وشيغان لكن بين له نقطة أنا جا أي دبتاني واحد هاي أنصو سارايا أنا قبلنا يرانتين أيان اسنقيني قبلنا نقولسنا هديتها خوفك أولى أو الشغلة وأذيك لكن مسج كان خوفك صقر حق بعض ولا إن أوجدت أذيك dib ma u wacda adreeskeeda ma ogaatana adreeskeeda muxuu yahay aniga ma aqaan meel ay degan tahay midda kale guri isoo bandhigta aniga ma ogolaada ma bilowday beenlow ma nagu cabaysaana naga tag taleefanka haddii uu ka maqan yahay kaartig waxaan u malaynaa inuu caajisay adig ma caajisana abaa ku baryaa ii aamin haddii aan ogaada gabadhaas waxay tahay oy gurigeen diyaar u noqoto qofta u horeysa aan u sheegaya waa adiga ii aamin oo ku baryaa ii ogoloo taleefanka inaa isiis adigin balan waayo bal ii waran adiga ma israacsiisana haya qalbigaaga maxaa ku jira ii sheeg qalbigii adigoo keliya ku jiro adigna qaati aan kaa taagana cid kale ma tabar u haayaabani haddaad aniga ii jeclaatid waa balan cimrigaaga inta ka dhiman farxad ayaad ku dhammaysanaysaa fiidyaa adiga kaarti miyaad jeceshahana hooyaday aabbahay anigoo yar ayay geeriyoodeen kadibna adeerkay ayaa i soo korsaday kaartina weligiis ima dareensiin inaan cidlo ahay laakiin shalay markuu wax walba ii sheegay ayaan ogaaday aniga inaan jecelahay weliba si xad dhaaf ah qalbigaygana uu boos weyn ku leeyahay jacaylka inuu wax jira yahay qofkan ay wax jeclaan karto waxaan ku ogaaday kaarti markuu noloshayda ku soo biiray markaas ayaan wax walba ogaaday aniga indhahana way i kala furmeen bravo calayk waan ku faraxsanahay maadaama gabadhayda ay wiil jeclaatay taasna waxay caddaynaysaa in nolosha ay qof la wadaagi rabto waan ku faraxsanahay gabadhaydii dhegayso 4 beri kadib waa dhalashadaada markaas ayaan kaga faa'iidaysanaynaa oo wiilka runta loo sheegaya okay soo maaha maya aniga ma rabo arrimahayga kaarti in loo sheego waxaan rabaa aniga afkayga wax walba inaan uga sheegto buuggaana waa buuggii hooyaday xasuusteeda aniga wax walba waan jeclahay iyo hooyaday wax walba ay jecleed halkan ayay ku qoran yihiin middeeda kale aabbeeyo hooyaday meeshay isku guursadeen ayay waxay rajadeedu ahayd aniga inaan tago markaas kadibna anin ku guursado sur ayaan aadaya kaartina meeshaas ayaan jaceylkayga ugu sheeganaya aniga waan kugu raacsanahay ra'yigaaga gabadhayda meekab wixii shir aan leeyahay dhan jooji gabadhayda ayaan hindiya u wadayaa sidee kaa noqotay ani markaan ciyaal mihi waxaan ahay qof weyn waana ismaarayn karaa adeer kaarti ayaan soo afduubaya kadibna waan soo noqonayaa sabdee lamahana soo afduuba For more interesting movies, visit mysomali.com. أراس ما جرو أراس ما جرو سنامي يا صاصع دياقي تقع ياقي صاصع له كي استاق ماشا هذه سيدة مريكن كوابا كتاقينا ماشا صوقر ماشا صاصع أنا كان صوصع نيجي كالي كثير بس وين موطنية سروالك هاد ليسا سنامي يا ماشا وكو صاصع دياقي أنقاتي سروكي وكو سونامي سونامي يا اخي
ها وكل شيء يا sidee tahay ii war اي صاحب اي سيادة هذه gudahana soo geliyaya soo bax kaala sunaam le buugdha sulaalkaa maxaa ugu soo carartane sinaani agsoo rortamiya vidya waad ogtahay kaftaga noocan oo kale inaan ka xanaaqanayo runtii hadda ma xanaaqdana adiga كاتك فيديا ولا شيء هذا فيديا ولا شيء هذا أنا قاعد أقرب هذا وحنا هاي فمي البودو هذا إنك تك إحنا وماهن يا أخي إسكت عارف حناقي ماشي هدو جي فلا كورن سونامي ككر إمالها صحت أخري هنا أيه بس نقدها يا أخي سوي سي هاي هاي اوكي ما هو هاي سوي على طول هاي مع حرشي ما راح يصير يا هاي معك ودعي محل فكر السبلان ما إلى هذا الشيء يا قبطاس سعودي أبا ولا لا هي ما كيش قبطة مكو قنعسي مكو وعا يشيك هاي وعا وريا هوي يري كالي حاجرة يها أو معناه أبو مدح الذهب خوت الذهب علوش الذهب قعمات الذهب كل هذا نوض الذهب وتايبه أنا من دافتينا وايد انتوغينا واي والله دافع لكن حرش مدح على طورة هدي مدح أو قصبح واسك بحسا حرش تو قصبح إنه قفتان وإنه تجيسا واي فانتي يا ملينا أنا كارتك فرحت أيات قصوتين هاو مالنا فرحت سنة دين دمسترا فرحت سو إذن كبر برنا معايا الأسحابتي سو أركيا والله باشال يا باور وضوئي باشال اسك جل أدين كده ما بيجي سو جسنا أيوه واتوري واكس هذا تيجي وصح يا هاي شيلين كي يعبانا ولا الحرش اللي مدح وحبك موجود كان باشال كل اسكين هاي ساس تاني هذا وضع يارينو يصير شيلين كيجا يسو صار مثلا سبع سوالف كاتيجوريا كالي ورسيتا يا سيو ويا جوجا كالي أديك وريا فوق أنا قفت أنا وربي إنا وضع عيارنا أديك تحليل معك سوق لي وكبريا سوق لا وكبريا بدك ما تسكت وكبريا وكبريا ور أنا بعيارتا نوع أنا كلا وانسو عيار تنتي إذا أنا أي عيار في عن كل عيارة هاي أنا ما إلى عيارسا أنا إنا لا عيارتا أنا قبره ولكن معكوش شيء شرفت هذا أنا كتابن إنهم كعيار دون دتك هرتود ويلبه أنت غافي اللي سوق لنا كتير سيال غربي ما هذيك قاعدة كرتا هذيك أنا وحا يقبل إن دتك هرتود إن شرفتك هذا هذا وريا قفل بموبيل هستو عن روا إن قفتان كتبتان وحكو سميناي أنا أمريكي جوا وكبريا ولا وكبريا وكبريا maxaa dhacay كارتك yani u sheeg waxa dhacay فيديو ايش الفيديو كده أنا أجيب دكتور لكن حلو بها لبس ساعة إنا ولا وحرك يا بابا هل وقت إنا ولا هذا وقت عشان من قبلنا نسيب كنا اسكون ده يوم معي gaashaale magaalada aanu joogno waxaa ka dhaca mar walba dil dhac kufsi boob waxaas dhaca dhan waxaa u sababa kayshow iyo walaalkiisa iyagoo og in sharci uu ka jiro misle waxay aaminsan yihin sharcigaba in uu jiibkooda ku jiro
anigana anigu midaas ka damqanaya ayaa keeshow waxaan u xiray garays si uu u ceyboobo waayo dhibaato walba beledkan ka dhaca asiga ayaa sabab ah iyo walaalkiisa dhegeysto waxaad adiga samaysay qalad iyo sax wixii ma sheegi karo balse waxaan kuu sheegaa labiskan annaga in noola siiyey in aan xabadaha tuugada ee soo gamahan shafka aan u dhigan oo aan dadka difaacno laakiin labadaa nin dartooda sharafdhac ayaa noo soo gaartay marka waxaan kaa codsanayaa dadkan inaad layso wax walbaba anaa xal ku dhiganaya gaasha alle aniga midaas qalad ayaan u arkaa dadkaasoo kale haddii aan noqdo hub qaato magaaladan oo dhan wada qabuuro ayay wada noqonaysaa keliya waxaan kaa rabaa qaladkan galay inqaabtiisa in aan maro diyaar ayaan u ahay waxaad igu akuto sharcigana kama weynin wax haddii waa martana waan qaadanayaa aniga ma laga yaaba nin daacada adigoo kale inaan xiro sharcigana dembi ka geli maayo iska baxa halkan maxaad igu yeertay war saaxiibta sidaad iga dhigta aniga dhan shoobin la-aan noqdo hadda shoobinaan rabaa miiraaxaysaane haa nakeen nama waalata maxaa kugu dhacay war aniga ma waalan keesho si uga arsata darteed sababtaad aniga ii isticmaasha ii sheeg midaas ayaa rabaa inaan ogaado war waan ku dilayaa ma ku cafinaya toos ii dilno war adiga waxba dheer u malay aniga hooyaday aabahay intaa ka dhida ayaan iskuulka iskaga jooga adiga darta ayaan u jooga adigana waad ii qiyaantay ii sheeg sababtaad ii qiyaamaysa aniga fidiya baalan oo kale isku wale aniga kadib ay dil war wajixnada maarta fidiya baalan inay kugu soo kor istaagsan maxaa kaa qaldan adiga war maxaa kaa qaldanaad ilaadaha miya aniga gurigeena markaan ka soo baxaya kudha nin walba wuxuu hamiyaa gabadhan quruxda badan siduu ku heli lahaa adigana jacaylkayga ayaad qoorta ka goysay waa ii sheeg aniga markaan halkaan imaanahay qorshe ayaan u imaaday laakiin waxa xaqiiqa jacaylkaan aniga kuu qaldan markaan ku arkay waa mid daba qof burcada misna gabar bii saynaysa markaan isku dhufto waxaan ogaaday inaad tahay gabadhii riyada qof qorshe u socday qofka warwal markuu arko wuu isku dhiibaa anigana adiga ayaan iskaga dhiibay hortaada naag ma jeclaano hay guriga hobkeena degay inaan degmo baydinaa iska waran dhib ma laha marba gabadhan dunida ugu jeclaa haddii ay go'aansatay in ay lamaano samaysato aniga run ahaantii wax dhibaan u arka ma laha aad ayaan ugu faraxsanahay wiilkan wuxuu la yaaban yahay aabbihii halka taagan oo saan u hadlaya laakiin aniga waxaan hooyo reer magaal ah gabadhayda waxay jeceshahana waan la jeclahay marka gabadhayda adiga oo keliya ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi kara gabadheeda adigaa iska leh waryaada ninkaas waa in aad raadisaan magaaladoo dhanna cabsi inuu bannaanka uga soo baxa ayaan rabaa markuu soo baxana aniga ayaa ugaarsanaayo igama badbaadaayo taasi mid macquul noqonaysa maahan dadka mas-uulkuna nagama cabsanayaan cabsidoo idil way ka guurtay qof laga gabanaya ma leh annagaaba qalqiil ku jirnaa markaanaan ku dhahay dadka dhan manala shaqaynooyin hal habeen ayuu atoor ku noqday asaga walaan halkoma hoos soo deg wax adag deh walaal ganesh mar hore ayaan dhaweeyey kaale soo dhawow soo fariista see kaa noqotay gurigeena maa nagu soo dhaweynaysaa ninkan waxaan rabaa raashinka ugu qatarsan gurigeena in loo keeno sidaa maxaad igu fiirinaysaa waa aniga cadowgaaga walaalkaaga markaan u dhameeyey waxaan umalaynaya hawshay inay dhammaatay balse adiga markaan cagajgelintaada maqlay waxaan ogaaday hawsheeda inay qabiyad tahay sidaas ayaan gurigaa ugu imaaday qaladkaad iga gelaysa adiga ilaa hadda ma ogid waad aragtay walaalkaaga falxumadaan u dilay isla sidaas ayaan ku dilaya haddii ad afkaada xiri weyso hadhowna waxaa la wey doonaa qof adiga meydkaaga gubo amaba duuga carruur iyo ciloolna adiga ay kugu cayaaraan sidaad ugu cayaarta ayay kugu cayaarayaan middaasaa iloobin aniga waxaan maqlay inaad dhibbaadi goobayso misna aad i raadinayso waxaad ilowsan tahay hal teleefon oo keliya haddii aad isoo dirleed aniga fadhigaa kuga imaan lahaa xitaa kafeegaad cabayso free ayaan kaaga dhigi lahaa lacag kaama qaadi lahayn aniga calaajabag ayay noqoleed midda gabadhan ayaa kuu soo hartay waa indhahayga nuurkooda balana waxay ku qaaday nolosheeda inay ila qaybsato balanta ilaa ka oofin halkan ayay joogaysaa wiilkayga adiga mid tahay iloobin libaax inta uu ka fog yahay ayay fiirsadu ku fiican tahay mar hadduu hoosta ka soo galo waxaad ogataa libaaxaas inuu ku cunaayo aniga ma dhihin taariikhda ayaa xusayso waa run laakiin waxaa ka sii daran ninkii libaax inta u tagay madaxa ka salaxa kadibna qoorta ka gooyey hadalkaaga ayaa hadda wadda igu furantay aniga midaasna ogow ayaan ku dhahay inaad heshiis rabto maxaad igu sheegi weyse waa wiil balaayo iska dhigaayo waxaad ogaataa
qofkii balaayo ku cayaara balaayada inay ku cayaarayso aniga ma dhihin taariikhda ayaa xusayso qofkii bisada iyo qofkii libaxa taariikhda ayaa xusayso marka wakhtigeeda la gaaro walaal waddada muu galnaa oo muu dhammaynaa inta tacsida oo halka ka dhammaanayso gacan yaa loo qaadin soo niima dhihin anaga maa gacan qaadin dad ayaanu dirayna oo ku dhahay walaal ninkan kalsoonida guriga ku soo gala ayaan la baqayaa aniga maxaa yeelay ninkan waa nin khatar ah lugahaga hoostooda ka soc ayaan ku dhihi lahay isku badnaa walaal saaxib meeshaan mar walba ay farxad noocan oo kale ka dhacda jooga waa inaad noo badishaa yakh midaan waa caadaysana mid kale ka cusub noqeen midaan waa nacaniga mid macaan badan oo soo saar haddii aad hoostaye jabiga bedel wuxuu ka wadaa mataqaanaa wuxuu rabaa anaga jabigeena in uu bedelo laakiin annaga midaas kama yeelayno annaga jabigeena intaysan bedelin ka hor ayaan jabigiisa bedelaynaa asaga aniga ma dhihin waryahay nimankiya haddii ogoshiin aniga inaan hadlo waa hadlaa raalli aan ka ahin dhaka jawigayga in la bedel diyaar aan u ahay laakiin waa inaad marka hore jawigiina aad bedeshaan goobtan waa inaad keentaan naago qurux badan haddii aad rag keentaan sidii warqadii oo kale ayaan u jeexayaa aniga ragga xaggaygana waxba kama ahan tolkaa tahay iisoo duceeya idin eri dhammaantiin aabi gabdha Makai, makai, chapa menya kuyamba ukumbe mampa ka ujisombe, chapa hi, ambire enya kuyamba hi, ukumbe mampa ka ujisombe, jamuro jamala jambalula nasraminana na hisa turrijana. ayl badana idhageysa adiga waxaa la gaaray waqtigii wiilkeena anaga aan u aari lahayn qorta ayaan ka soo gorinaa nakeen adinkana kaartag ninkan anaga akhbaarta beenta waxa uu noogu soo diray waxa uu rabay ninka wiilkeena diray inuu halkan ka fakiyo laakiin anaga midaas kama yeelayno maantana waxaa ogaataa in aan kaartig dilayna cid bini aadan oo naga celin karta ma yarata ماذا تقول محاي تري معنيه ورياهوي دتك أو بوتيس كعبسها أنيجا ميه لا أنكويري أنا عايزة وحن ربا وجهك وجهي أوكي ما بلا وين قدام براو ورياهوي بوتا واحدة ميسي دتك لك عبسها ما أنا متى عبسها سكين ورياهوي أنا من عبسها ميه دلا شيء ده ولا جورا دود لي بقى حنكو دنجيجا ورياهوي أنا مكول دجالة ماي أديك ننفع حاجة كول دجالة معني وكاير يا كارتيك I do my thing, give a damn what the haters say. I do my thing, give a damn what the haters say. Don't fuck with your hoes. I do my thing, give a damn what the haters say. adeer 13 maalmood ayaa aniga iscelcelinayay ugaarta aan gaadgaadayna horteyda ayay taagan tahay waa maalinta ugu dambaysay taasiida walaalkaa meesheed masaakiinta aad raashinka siinayd ma waxaad halkan u timaaday inaad dagaal iyo fooda abaabusho 10 qofood oo adiga aad soo dirtay haddii ay feer igu dhuftaan aniga midas waxba uma arka laakiin hal feer aan ku dhufto 10kooda haddii ciidda ka hoos mari waayaan aniga ayaa kuu imaanaya gacantaada weliba sidaa doonta igu inqaab beello waa nin ragga ninka sidaan u hadlay haddii aad dagaal u imaaday yaad u xeeran tahay gacmo furan ku soo dhowow aniga hortaada ayaan taaganaya soo soco hadal badan han ma buuxsha ayaan ku dhahay aniga ayaa ku tusaaya waxa aad tahay meeshan ayaana kugu jarjarayaa iska kay dhici ayaan ku dhahay cid kaloo kula dagaalamaysa malaha
adiga markaad walaalkay gacan u qaadaysay soo ma ogeen marka aniga gacanteyda aad soo gasho in aadan iga badbaadayn war dadkoo dhan haddii ay isku yimaadaan cid iga kaa badbaadin karta ma jirta ii kaana gabadha tan soo ma ahan gabadhii aad rabtay inaad guursato hortaada ayaan baasiin intaan ku bilbala dib qabadsiinayaa haddii aad iga badbaadin karto keena basiinka ku shuba ayaan idhaa basiinka walaal ku shuba si fiican u daawo adigii iska daaya aabbaha xataa ma badbaadin kara ayaan ku soo istaag aniga caanaha lagu siinaya walaal wax maa ku gaaray dhammaantood ii soo aruuriya soo socda war yaa soo socda haye wiil yahow markaan kaa diidayay dadkan arrimahooda inaad faraha la gasho sidan ayaan kuu diidayay maxaa yeelay wakhti fiican ayaad akhbaartooda soo gaarsiisa mooye saacaddan way kuma bicin lahaayeen hadda gacanteeda ayay soo galeen taariikhdaana xusi doonta mar dhow ayaga way u dhammaatee gaashaanle bistoodaa soo qaadanaysa annagaan ugu kor jaranaysa waxaad ogaatay adigana taariikhda in ay wax kaa qorayso xaafadda awjada annaga ayaa u tirinay yaa way cidda gacan noo qaadan karta car waa kaas annaga qof soo baxo gobolkan dadka degan niyadda ayagoo ka jaban ninkan ayaa u imaada kalgacayl buuxa ayuu siiyey asagana wuxuu mudan yahay kalgacayl